caaw marka waxaan kaloo qaadanaynaa dadkii isku dayay inay markaa nabiga ay dilaan Umar marka min Wahab al-Jumaxina sidaas isaguna hayo dadkii isku dayay ayuu kamid ahaa ninka loo yiraahdo Samaamah ibn Athal al-Hanaf baasna jiray oo qofka ninkii saddexaad ah ninkan madaxweyne boqor buu ahaa wuxuuna kamid ahaa boqoradii loo diray waraaqaha oo inuu xalay soo mar waha markii waraaqdii loo keenay buu xanaaqay bas la igu soo diri kara waraaqani isaga laftigiisu wuxuu ahaa dadkii inuu nabiga intuu aado inuu soo dilo laakiin in adeerkiisa wuxuu yiri warinka ha aadin mana dili ka dhida ha isku aadin ninkaas dilkaaga maahan meel laga fariiso laakiin dad kale muslimiin u laayay markuu maqlay nabigu marka ninkaas dadkii buu laayay buu ninkii arka dhiigisu waa hadir hal dil meeshii lagu arko meeshii lagu arko hal dil marka dama Madiina lagu qamo meel markii dama isagoo meel maraya la soo qabtay markii la soo qabtay nabiga loo keenay Madiina waxa lagu soo xiray tiirka wasiga lagu soo xiray Madiina markii muslimiin salaada aadaya waatay haye la oran jiray yaa Sumaama xaalka ka waran hadaa idishidna nin macnaha aad u aari ka dhid baan ahay hadaa isiidaysidna nin mar waatu soo lahayn sidoo markii dama meesha ugu xirnaa markii dama waa la iska sii daayay kadibna wuu islaam kadibna ma noqon isaguna inkaas wuxuu isku day nabiga inuu dilo isna waa islaam qofka afraad wuxuu ahaa Jamiil islaantii loo oran jiray Xamaalatul Hadab suuratu Tabad ku soo degtay maalmaha kamid ay soo gashay masaajidka iyadoo dhagxaan wadata markay masaajidka soo gashay bay waxay tiri Abu Bakar bay u timi Abu Bakar oo meesha shaydaankii saaxiibka ahaayo maalin walba halkan balad akhrin jiray nacay jiray anaga oo diintayada dhagxaan bay sidataa nabigu ag fadhiya mana arkayso ilaahay baa ka xijaabay oo ka qariyay marka iyaduna hadda waa taqaan meesha ku dambeysay waxa la yiri quraanka hadii Abi Lahab uu islaami lahaa quraanka waa buri lahaa maxaa yeelay quraanku wuxuu sheegay isagoo nool inuu naar gelayo ninkan oo gaalnimo ku dhimanayo tabat yada Abi Lahab wa tabba waqooga ma aqna anhu maaluhu madeeqin maalkiisa iyo ma kasaba wuxuu shaqaystay sayasla wuxuu gali doonaa naar buu gali doonaa ninka noocaas haduu islaami lahaa ka war maba islaamin baad quraan baaba ka soo degay daata lahabin wa imra'atuhu nawaagilaysa حمالة الحطب حابة قرصة بنيد سما جدان في جيدها حبل من مسد حرق ناريد بانا قورت اللوغلين دونا ايادنا ساس اهل نار اهيد القرآن كاشيغي ايادنا وحي دمعضي اني نبيغا سوديسو او حكوسو نفتو لكن الهي باكا قرية ابي بكر يسو اسلا فردية باي مكا اوصل اكسي وابا اركي ويديبا ميايا بيتنك مانا وهذا واقفر يمنو جد الهي باكا ان صابي وفك سناد وحو اها ابو جهل لما تشرب اسكو دي marka waa tuu yiri ayafuru muhammadun wajhahu nabi allah muhammad ma wajigiisa buu hor ciida ku camcaminaya dhigaya sujuudaya anaga u jeedna mardama haduu saa sameeyo buu yiri maka ku dhex sameeyo dhagax weey ma intaan qaato baan bashar ku siinay waa soo aaday dhagaxii buu soo qaatay nabigu sujuusan mar god weynaaday baa meeshii laga furo oo dab ka soo booday dib u soo orday dhagaxina waa tuur war maxaa kugu dhacay wala soo taan ninka tiri waa soo dilay war ma haysan meesha god dab ka baxayaaba ka soo baxay bin meesha haddana maalin labaad biir waa ku noqonay soo noqday maalinkii damana dhagaxii soo qaatay nabiga sujuusan budacuna madaxa ku dhufto oo dilo goortu u soo dhawaaba ratiq qooqan oo jabal lagu soo salado dadkuna uma jiraan soo carar haddana mar labaadka war marka soo cararaysaa maxaa kaas yaali war meesha niyo balaa ka soo keesan karti qooqan oo mataqana bay ugu soo orday isagana sidaas ilaahay mataqana ku fashiliyay mana uusan islaamin Jamiilna ma islaamin qofka qaybta marka lixaad oo nabiga la isku dayay in la dilo waa nabi ilaahay Muhammad ninka cid wax ka qabana ma jiro waxa loo dilay maxay tahay aamantu billah dadka qaar baa waxay waa la yaayay waa la imaagay saana la yiri nabi ilaahay Muhammad baa inta la isku dayay ilaa 20 jeer baa isku dayay in la dilo markan waa daaru nadwa qabaa'ilka carab ay soo yimi daaru nadwa shirki lagu qabtay quraysh qabatay oo shaydaanku ka soo qayb galay yaa shirkidoonka aha shaydaan nin iska soo dhigay oo koofiyad qaba shaydaan baa yimi goortii tala la keenay wuxuu leeyahay may taas socon mayso hadda ninku waa shaydaan la socdo may warkaas war soconaya ma markii dambe la yiri
intaasoo qabiil qof walba in dhalinyaraha laga soo saaro seef samaysanna ha loo dhiibo mataqaanaayay sidaas hal mar ha ku kulmiyeen qurayshiyay markaa wuxuu sheeganaysa qabiilada quraysh oo dhan miya markaasna way iska taanaynayaan war ilaa balala alla ila warkaasaa war soconaya waa soo tageen isweer bay ka qabteen seefihii bay soo qaateen isweerkii meesha ka qabtay ku jiray markaasaa nabiga loo sheegay way isaga ciidda ku shabaya suddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynaahum fahum laa yubsiruun wayada dhacaysa markaas war bal ciid madaxiina ka firay wayaga la leeyahayo qof walba kiila ciidaa madaxa u saaray war waa nasaxay waa baxnig meeshaas saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ninba waxbuu ku soo caanbaxay ninkii ugu geesisanaa wuxuu ahaa hadda rag baa waxay dhahaan nabiga aad baan u jecelnahay hadda nabiga haddaad jeceshihiin waddadiisii raaca daacadiisii la imaada wuxuu ummadda fariiqaata sunnadiisa u heliya saa samee wuxuu yidhi yaa seexanaya meeshaydii oo dharkaygii go'aygii huwanaya 20 nin baana maxay fadhiyaan xaggan keebla yuurna cali ibn abi aalib baa meeshii la soo seexiyey cali ibn abi aalib baa yidhi anaa seexanaya go'aagiina anaa huwanaya nin loo diyaariyey hal mar in nabar lagu wada dhufto ka warrama ninka bedelayo meeshiisa ninka geessan miyaa jira ka warrama 20kii waa safan yihiin go'iisii buu huwaday meeshiina waa seexday nebiguna wuu baxay say u moodaan inuu meeshii weli u jiifo iyagaan hubsan inay ku wada dhuftaan mirin marka ninkaasu wuxuu laga nijay ashahiid alxay ilaa isu diyaariyey mataqaanaa dil buu ahaa wuu baxay wuu soo istaagay soo maha ha istaagitaanka markuu soo istaagay bay arkay maya marka waagi markuu baryay ba waxa arkay meesha in cali jiifo waardiye ka hayeen ilaa anigu waa soo bixlaa soo ma wuu baxay nabigii ciidaasa madaxa laga shubay iyaguna saasay ku fashilmeenoo isku daygii dilka ahaa shaydaanku godoominayey daaru nadwa daaru laqrab bin arqam baa la oran jiray halkaasay marka daaru nadwa halkaas iyaduna ay ku fashilantay markaasna waxay ahaayeen qabaa'isha qurayshood oo dhan ayay ahaayeen marka toddobaad waxay ahayd nabiga iyo abubakar bay ahaayeen waa markay hijroonayeen isku daygii damcay in lagu dilo nabiga calayhi salaatu wasalaam wahuma fii qaari xiraa oo quraysh oo dhan yidhi qofkii soo qabta intaasuu leeyahy hadda caalamku soo kama maqashaan qofkii keena waxaasuu leey ma maqashan waa waagaasay soo bilaabtay abubakar isagu waa tageen godkii qaaru xiraa bay galeen markay qaaru xiraa galeen quraysh oo dhan waxaa la yidhi labadaa nin qofkii keena ama geeri ama nolol 100 halaad mid walba leeyahay carabtuna aad bay ahaa 100 halaad qof walbana wuxuu jecel yahay 100 geel inuu helo godkaasay ku jiraan xamaan baa u timi afkii bay mataqaanaa waxay ka marisay mataqaanaa caaro kadibna shimbir baaba hor istaagtay waardiya ka qabatay war godkan haddii dad ku jiro shimbir ma hor istaagteena meeshana meel caarowday iyagina xaggee taagan yihiin korka godka korkiisa taagan yihiin wuxuu leeyahay abubakar hadday hoos fiirin lahaayeen la raacaana nabiguna wuu diidaya u leeyahay maya ithnaani allahu thaalisuhuma suuratu tooba iyada laga sheekaynayo ina allaha macana sooma jeedid uma baahna cidna markaasna waxay marka quraysh ay baxsadeen oo hijroonayeen oo la yidhi xayan wa miitan hala soo qabto iyadana laguma guulaysan marka toddobaad oo la isku dayay nabiga in la dilo waxay ahayd suraaqat ibnu malik markay dhaqaaqeen nin gaalaa kaxeeyey oo waddada aad u yaqaanay oo ujro ka qaatay markay tageen oo meel dhexe sii marayeen nin la yidhaahdo suraaqat ibnu malik almudlaj warkaasuna dee meel walba qabaa'ishi waa loo diray maxamed iyo bakar waa ka soo baxeen mako hal la doono oo ninkii keena 100 halaad buu leeyahay 200 halaad baa la siinaya markii dambe ninkan oo qoomkiisa u khudbaynaya ayaa wiil u yimi nin baa ordaya yimi war halkaa 2 qof baa marayay oo 2 rati saaran nin baa hogaaminayay waxaan u malaynayaa maxamed iyo saaxiibkiisina yihiin war soo qabta war waa u yeeray waa afjigo xiro war naga aamus ninkaas waa hebel iyo hebele wuxuuna rabaa inuu intuu isagu baxo uu doonto uu soo qabsado war aamus biirni war maasin war waa cali iyo geediga hadda naga fariisani
ninkii waa afjigay waa iska fadhiisay xoogaa buu warkii sii waday si aan loo fahmin kadibna waa u dhuuntay gurigiisii buu tegey faraskii buu islaantii iyo banaanka iige warankiina ii saaro halkaa iigu saar bahalkii faalka lagu faasan jirana wuxuu yidhi ii qaad waa qaatay dadkiina meeshii bay u farfadhiyaan waa dhuuntay waa ka dabatay faraskiisa waa qaatay waa isaga markuu u soo dhawaaday faraskiisa labada lugood dhulka u go'ayeen dalaq markuu hadalkooda maqlo markii dambe waa isaga sidaa isaguna ninkaana waa daa islaam waraaq baa loo qoray 3 jeer buu isku dayay 3 jeerna faal iyo qoriyuu tuurtay mar walba laaba u soo baxays waana khilaafay markaas isagoo ciirsanay markii dambe uu ogaaday inuu nabi yahay kadibna sidii buu yiri halaygu qoro waraaq waa islaamay laakiin isla markaa ma raacin uu noqday laakiin ninkii ugu horeeyo intuu meel calaamadii isbaar dhigtay dhahan buu ahaayo dhaha war halkan maxamed iyo ma soo marin iyo cid kale toona noqda qofku arkaba wixii meesha ordayo dham isaguna waa qofkii toddobaad isku daya markii toddobaad oo la isku dayo marka sagaalaad waxay reer bani qurayda qoladii yahuud ahayd wiligood saasay xasad iyo balow ka shaqeyn jireen ayaa waxa heshiis lagu galay magaalada Madiina qof hadii la dilo dhiig in la wada bixiyo marka dhiig buu ka doonay nabiga Abi Bakar iyo Ali baa raacay heshiis bay ku wada jireen sidaas waa aaday nabiga marka waxay dhaheen halka fariiso meel darbi oo fariistay markaasay waxay dhaheen maanta chance ku haysanaay dhagax weynaad inta mid u dhiibeen qaado oo xaga ka soo istaago madax bashar kasi nabiga malik jibriil baa soo sheegay waxa mid baa gadaal soo socdo dhagax buu soo sitaa meesha iskaga kac waa iskaga kacay kadibna ayadii reer banu qurayda suuratul al-hashr laga hadlay reer banu qurayda reer banu nadir waa iyada markaas iyagana nabiga loo digay malik jibriil baa sheegay waa loo soo waxyooday min indillah xaq laga wato waye meesha iskaga kacay kadibna dagaal baa lagu qaaday heshiiskiisaas ku jabiyay markii sagaal markii tobnaad wuxuu ahaa nin reer baadiya ah ayaa nabiga u yimid saxaabadiisa wata geed buu seexday nabigu seeftu meel surtay xadiiska riyaadka ku yaal kulli waa wada taqaaniin kadibna intuu nabigu u soo dhuukiyay buu seeftu qaatay iyadoo saxaabadiina ay meel seexdeen kadibna seeftu intuu la baxay yaa iga ka cilinaya man yamna'uni wati markaas yiri Allah buu yiri goortii yiri Allah buu intuu daandaamay buu dhac seeftu ka dhac nabiga qaatay seeftu siin aniga yaa iga ka cilinaya nabigu markaas kun khayra akhidin waxa noqotaa qof qaata ki u khayr badnaan noqo soo ma jeed dagaal lagu soo aaday isagu waa islaam xadiis kuma arkin laakiin wixii dagaal lagu soo wado buu yiri anu qayb ka noqon maayo kaasuna saas isaguna ayuu ku fashilmay markii 11aad waxay ahayd ummu qirafa oo min bari fazara islaam baa isku dayday nabiga inay disho bal annaga bal aragna waa markii 11aad soo ma hadda kuwa badan waa laga yana aragtaan oo intaan ugu soo khulaasay waxay tiri nabigu hilibka meesha ka cuna ugu jecel saalayan garabka neef dhanbay soo sumays kadibna garabka sunta u soo badis nabiga kaleey salaam waa loo keen loo soo hadiyay kadib nabigu waa u qaninay goortu qaninay baa hilibkii la hadla wuxuu yiri waan sumaysanahay nabigu wuu tufay saxaabada adu qayb baa ma taqaana inta laakiin qaybra u dhimatay dhahanin kutubta ugu noqonaysaan asaas ugu soo iyadana asaas ay ku fashilantay mana islaamin iyadana marka la 11aad waxay laba nin oo mujrimiin ah ayaa waxay ku soo dhuunteen wafdi nabiga qaabilayay iyagu dan gaar ay leeyihiin xilli maxamed baan soo dileen laakiin wafdigay ku dhex jiraan iyaguna waa soo tageen macawfuudin qabiil yiraahdo Aamir bin Sa'sa'ata qoladaasay ku dhex jireen marka waa u yimaadeen marka Aamir iyo Dufayl baa la kala oran jiray labada nin marka midna wuxuu yiri waa u sheekaynaya midna wuxuu yiri adigu seefta la baxo gadaal maro laba ku dhufo shan ku dhufo labada ninna waa yimaadeen mar gaar ay nabiga la kulmeen u yimaadeen nabiga meel gaar jooga marka fadaa alayhi marka markii ay saa sameeyeen ayaa arintii ayaa la ogaaday iyagana markaas nabigu ayaa la habaaray waa la ogaaday seeftii baa ka dhacday ninkii kadibna waa la ogaaday arintoodii yani meesha laga ma fogeeyna arintii waa lagu qabtay waa fashilantay nabigu marka labadii waa habaaray mid faraskii buu ka dhacay oo ku dhintay midna xanuun aan la garanayn baa ku dhacay oo sidaas isaguna ayuu ku dhintay waa 12 inta anigu hadda aan ogahay oo
midda 13aad waxay ahayd imraa yahuudiya ayaa nabiga sumaysay iyadana bacda rujuuci min khaybar hilib ayay ugu sumaysay oo iyaduna saasay isku dayday tan hore waxay ahayd ummu qurfa la oran jiray reer bani fasaala ay kamid ahayd hilibkaas iyaduna u soo dhig marka tan marka garabka sumaynaysa waa midaan yahuuda marka 14aad waxay ahayd waana kii ugu dambeysay qaswatu tabuuka markuu ka soo noqday nabigu munaafiqiintii niman kamid ah oo 11 ah oo ciidanka muslimiinta ku dhex jiray ayaa waxay ku tashadeen inay mataqaana ay nabiga meel ka tuuraan hashiisii isagaba kadibna labadii saxaabiyo nabiga waday ayaa ogaaday arinta marka ninna gadaal buu hasha ka waday ninna horay buu ka waday xudayfa ibn al-yaman iyo Ammar ibn Yasir bay ahaayeen labada saxaabi iyadana markaa saasay mataqaana ay ku dhacday oo lagu badbaadiyay ninka aan ka soo tagay wuxuu ahaa 15aad Uqba ibn Mu'ayth ninka loo oran jiray oo magaalada Makka nabiga intuu qaatay uu ceejiyay ilaa inuu soo baxay nabiga intuu go'o qaatay maya gitaar miya waxbuu ku ceejiyay xarig ilaa nabiga inuu soo baxan uu dili gaaray kaasna dagaalkii Badr baa lagu dilay isagana markaasna wuxuu isku dayay nabiga inuu dilo ilaa 15 jeer ayaa nabiga mataqaana la isku dayay in la dilo oo ikhtiyaar lagu sameeyo ilaahayna waa ka badbaadiyay marka qofku markii ilaahay uu idmo ayuu horta dhimanaya laakiin waa qofka diintiisa iyo aqeedadiisa inuu ilaashado kuna dadaalo mataqaana diintiisa nabi maxamed aan waxba ka galin oo dib u geysan ayaa sida la isugu dayay wama mooda marka wax kale marka insha Allah taala caawa intaasan muqaddimo ka dhigaynaa Umayr ibn Wahb insha Allah taala waxaan bilaabi doonaa xilliga inoo xiga insha Allah oo wiiga dambe ah hadii ala yiraahdo wiigan soo socda Friday night iyo Saturday night iyo Sunday nightna Sheikh Abdulsaaq ayaa inoo bilaabi doona kitaabkii aqeedada ahaa ee awal hore u socday ama kitaab kale marka insha Allah taala kitaabkan wuxuu noqonayaa inuu socdo ayaamaha weekdays-ka talaadada iyo arbacada baan ka dhigaynaa isniinta dad baa sooman khamiisna dad baa sooman inta u dhaxaysa marka labada maalmood baan gelinay bacda al-maghrib ilaa ishaha isniinta marka sabtida ismaaha iyo sabtida iyo axadana waxa la akhrin doonaa kitaabka aqeedada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.